السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا جنالكيني عبد الرحمن ترافل ومركلة إيه مقال عصب فلان هدي جنالك كو عصب تهي oo ay tahay markii ugu horreysay soo booqato subscribe noo saar muuqaalkana like garee haddaa horey noola joogtay subscribe noo saartana waa mahadsan tahay. maanta muuqaalka waxaan kaga hadlaynaa arrin dad badan ay soo weydiiyeen oo ku saabsan Shanghai visa. Schengen visa intaan isla gelin waxaan doonayaa inaan fahamno dhowr waxyaalood oo isku xiran haddana ay u baahan tahay in si fiican loo faahfaahiyo oo introduction fiican laga bixiyo si loo fahmo intaan u gelin Shanghai visa. marka hore waxaan fahanaa dhowr qodobkooda aan rabno inaan fahno waxa weeye European Union wadamada la isku dhaho. European Union waxaa la isku dhahaa 27 wadan. marka hore 28 wadan bay ahaayeen, laakiin 1 January sanadkii hadda soo dhaafay 2021 waxaa ka baxay wadanka UK. hadda waa 27 wadan oo ku midaysan qaab politically ah, siyaasad ahaan iyo economically ah ama dhaqaale ahaan labadaas ku midaysan yihiin. ujeedada loo asaasay waa labada ujeedo. haddana waxaa jira wax kale loo yaqaano European Economic Area oo loo soo gaabsho EEA. European Economic Union waxaa ku jira wadamo aan ahayn European Unionka. waa European Unionka oo lagu daray ilaa 3 wadan oo kale, markaas waxaa noqonayaan 30 wadan. wadamada lagu daray waxa weeye wadanka Norway, wadanka Iceland iyo wadanka ugu yar qaaradda Yurub ku yaalla ee loo yaqaano Liechtenstein. marka hadda aan fahanay European Economic Area, haddana waxaan rabnaa inaan fahno waa maxay Schengen Area. intaan u gelin Schengen visa waxaan doonaynaa inaan fahno waa maxay Schengen Area. Schengen Area waxa weeye waa wadamo ku midoobay in si free ah dadka muwaadiniinta wadamadaas u dhashay ama dadka degan ay si xor ah ay iskaga ka gudbaan xuduudaha wadamadaasna waxay gaarayaan 26 wadan. waxaa ku jira wadamo European Union ka mid ah iyo kuwa aan ka mid ahayn. sidoo kale waxaa ka maqan oo aan Schengen Area ku jirin wadamo ka mid ah isla European Unionka. wadamadaas ka maqan ee European Unionka waxa weeye wadanka Bulgaria oo kale oo European Unionka ku jira kuma jiro Schengen Area. wadanka Romania kuma jiro, iyo wadankii ugu dambeeyay ee kusoo biiray midowga Yurub wadanka Croatia loo yaqaan. sidoo kale maadaama uu 1 January sanadkii hadda soo dhaafay ee UK ka baxday midowga Yurub, iyadana kuma jirto Schengen Area. sideeda horena markii hore xataa iyadoo ka mid ahayd maysan ku jirin Schengen Area. Schengen Area waa 26 wadan oo intooda badan ay yihiin European Union. waxaa soo raaca wadanka Switzerland iyo Norway iyo wadanka Iceland. Switzerland sideedaba kamid ma ahan European Unionka, sidoo kalena kamid ma ahan aaga dhaqaale ee Yurub ee loo yaqaano European Economic Area, laakiin waxay ku jirtaa Schengen Area. maadaama intaan fahnay, hadda waxaan u soo gelaynaa mowduuceeni ahaa waa maxay Schengen visa. sidoo kale waxaan ka jawaabi doonaa yaa bixiya, xageesa laga helaa Schengen visa. sidoo kale shuruudaha qofka looga baahan yahay Schengen visa inuu dalbado ayaa iyadana ka hadli doonaa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa yaa u baahan inay dalbadaan Schengen visa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa noocyada kala gedisan ee Schengen visa iyo sida ay u shaqeyso. kusoo dhawo barnaamijka. waxaan ku xasuusinaynaa mar kale adoo mahadsan inaad muuqaalka aad like saarto, haddaadan hore subscribe noo saarin aad subscribe noo saarto. Schengen visa waa fiiso oo short term ah oo waqti kooban shaqeynaysa. muddada ugu badan ay shaqeyn karto waxa weeye waa 90 maalmood. waxaana lagu joogi karaa 26 wadan Schengen Area loo yaqaano oo ay ku jiraan wadamada midowga Yurub qayb ka mid ah iyo wadanka Switzerland iyo Norway iyo Iceland.
Schengen visa waxaa dalban kara dhammaanba sida iyagu ay sheegeen wadamada dunida saddexaad ku yaala, inkastoo anigu aan aaminsanahay dunidu inay hal tahay, laakiin wadamada ay kala hormarsan yihiin. laakiin wadamada mataqaanaa ku yaala qaaradda Africa iyo wadamada ku yaala intooda badan qaaradda Asia. adigu markii laga reebo wadamada isla midowga Yurub ku jira iyo wadamada Mareykanka iyo Canada, Australia iyo New Zealand, sidoo kale waxaa soo raaca wadanka Japan, Singapore iyo koonfurta Korea. intaas uma baahna Schengen visa markay imaanayaan wadamada mataqaanaa Schengen area. waxay kusoo geli karaan bilaa fiiso, laakiin inta kale oo dhan waxaa looga baahan yahay markay soo gelayaan inay ku yimaadaan fiisa looga baahan yahay. arrintaas waxa u eg waxaa sameeyey wadamada loo yaqaano East African Communities oo ay Soomaaliya hadda ay doonayso inay ku biirto. wadamadaas oo siyaasad ahaan dhinaca immigrationka iyo dalkugalka iyo isku socodka dadweynaha ka midaysan, sidoo kalena dhinaca dhaqaalaha iyo badeecadaha lasu kala gudbiyo iyadana ka midaysan oo canshuur dhaafa ay sameeyaan. waa arrin u fiican Soomaaliya haddii ay ku biirto dadka Soomaaliyeed, haddii ahaato dadka muwaadiniinta ee safraya iyo dadka ganacsatada ee xoolaha Ilaahay siiyey ee doonaya inay badeecadahooda gaarsiiyaan meel ka baxsan Soomaaliya gudaheeda. maadaama aan hadda isla fahanay yaa u baahan Schengen visa markay soo gelayso wadamada Schengen area, hadda waxaan fiirinaynaa xagee laga dalban karaa Schengen visa. Schengen visa waxaa ka dalban kartaa 26 wadan ee aan soo sheegnay, samarkaana aan sawiradooda inala wadaagay ayaa ka dalban kartaa. haddii aad u socoto hal dal wax ka badan, waxaad u baahan tahay dalka aad waqtiga ugu badan joogayso inaad ka dalbato safaaradiisa ama qunsuliyadda uu ku leeyahay waddanka aad degan tahay, ama visa application centerka meelaha iyagu ay u sameeyeen in codsiga dalkugalka ama fiisaha uu qofku kusoo gudbisado. intaasoo meelood baa ka dalban kartaa. laakiin haddii aad hal wadan u socoto, ujeedadaadu uu yahay wadankaas ayaa si toos ugu abaaraysaa oo aad fiisaha ka qaadanaysaa. haddii aad dhowr wadan u socotana wadanka ugu badan ee waqtiga ugu badan aad joogayso ayaad fiisaha ka dalbanaysaa. haddaba waxaa loo baahan yahay marka maxaa la igaga baahan yahay shuruudaha iyo fiiga lacagta fiisaha lagu bixinayo ayaa iyadana muhiim ah in la ogaado. haddii aan ku hormaro fiiga ama lacagta fiisaha, qofka haddii uu ka wen yahay 12 sano, fiisaha lacagta waxa weeye $96. haddii uu inta u dhaxaysa uu jiro 12 iyo 6 sano, inta u dhaxaysana waa $48. haddii uu 6 sano uu ka yar yahay ilmaha waa free oo wax lacag laga qaadi maayo. sidoo kale qofka haddii uu ku safrayo baasaboor diblomaasi ah ama official passport ama surfaceka baasaboorka dadka shaqaalaha dowladda u shaqeeya oo kale, kuwaas waxay ku qaadanayaan free oo wax lacaga lagama rabo. laakiin fiisaha ayaa waxay kala leedahay 3 bilood 90 maalmood oo ah single entry visa. waxaa jirta double entry visa oo qofku 2 mar waddanka ku aadayo oo 2 mar ku gelayo Schengen area. sidoo kale waxaa jirta multiple entry visa oo qofku dhowr mar ugu tagay. marka multiple entry visa inta badan waxay ka bilaabataa 1 sano, 3 sano ku xigta, haddana waxaa ku xigta 5 sano. marka safaaradda ayaa go'aaminaysa ama dowladda aad fiisaha ka qaadanayso 26 dowladood ka mid ah ayaa go'aaminaysa ujeedada uu safarkaagu yahay, inaad u baahan tahay double entry visa iyo inaad multiple entry visa u baahan tahay, ama inaad hal mar single entry visa aad u baahan tahay. iyaga ayaa go'aan ka gaaraya markii aad codsiga u gudbiso. laakiin waa inaad madaxa ku haysaa fiisada aad dalbanayso waa inay dhowr ujeedo ay xambaarsan tahay. kow,
waa inay ahaataa fiisa dalxiis oo tourist visa ah. markaas waa lagu siinayaa Shanghai visa oo aad ku tegi karto mid ka mid ah 26 waddan ama ilaa inta adigu aad rabto. Number 2 waa inay fiisadaas u ahaataa fiiso aad ku booqanayso dalkaas ehel ama asxaab ama qaraabo xagga ku joogto. Ayagana waxaa loo yaqaanaa family or visitor visa. sidoo kale business purpose ujeedooyin aad ganacsi waddankaas aad kasoo fulinayso muddo yar oo kooban, iyadana Shanghai visa waa ku dalban kartaa oo waa loo ogol yahay qofku inuu dalbado. haddii aad u socoto medical treatment ama medical purpose oo caafimaad ahaan u aadayso ay soo baarayso muddo yar oo kooban 90 cisho gudahood, maadaama aan dhahay waa short term visa, waxaa lagu ogol yahay wadamadaas inaad joogi karto mid ka mid ah ama inta aad ka gaarto 90 cisho. 90 cisho ka bacdi waxaa ku khasban tahay in aad ka soo baxdo Shanghai area. hadday tahay fiisadaadu double entry, waa in aad 180 maalmood kadib aad ku noqotaa Shanghai area oo aad tagtaa. marka waxay isticmaalaan rule ah the 90-180 rule oo macnaheedu yahay fiisa sideeda waa short term, waddanka waxaa ku joogi kartaa ama wadamadan Shanghai area 90 cisho ama 90 maalmood. 90 maalmood markay ka dhamaato waxaa ku khasban tahay inaad waddanka ka baxdo. haddii ay fiisadaadu dhicitaankeeda waqtiga dhici lahayd aan la gaarin oo double entry ama multiple entry, maadaama aan soo sharaxay waxay kala yihiin double iyo multiple entry, waa inaad ku soo noqotaa 180 maalmood kadib. 180 maalmood waxay noqonaysaa markii bil loo fiiriyo 6 bil ka bacda ku soo noqonaysaa. marka waxa weeye 90 cisho ka badan ma joogi kartid. qaabka saddexaad oo fiisada lagu siin karo waxa weeye nooca ay tahay inay fiisadu ahaato haddii aad ka qaybgelaysid cultural or sports event. haddii aad meesha u soo aadayso inaad bandhig dhaqameed ama ciyaaro ama sports arrin ciyaaro oo dhacaysa, iyadana waa lagu ogol yahay Shanghai visa inaad taqaan aad ka qaadato 26 waddan mid ka mid ah. sidoo kale haddii aad ku imaanayso short term study, macnaha waxbarasho yar oo kooban ama baaritaano research aad samaynayso, iyadana waa lagu ogol yahay in aad qaadato. laakiin haddii ay ujeedadaadu tahay in aad ku noolaato muddo aan cayinayn oo long term ah wadamadan Shanghai area loo yaqaano, aad doonayso tusaale ahaan inaad ka shaqayso ama aad waxbarasho aad ka barato, iyadana markaas uma baahnid inaad qaadato Shanghai visa. waxaa u baahan tahay in aad waddanka aad wax ka baranayso ama aad ka shaqaynayso oo aad contractiga shaqada aad ka heshay in aad fiisada toos uga dalbato, ayagaa markaa ku siinaya viiso aad waddankooda kusoo geliso oo national visa ah. kadibna haddii waqtiga aad joogayso uu 90 cisho uu ka badan yahay, markaas aad u baahan tahay ogolaansho shaqo work permit ama ogolaansho joogitaan oo ardaynimo ah. sidoo kale waxaa jira arrin muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato. arrintaasi inaad hadda maskaxda ku hayso waaye waxaa jira wadamo aan ka mid ahayn Shanghai area, islamarkaana xataa aanan ka mid ahayn intooda badan European Unionka, oo aad haddii aad haysato fiiso Shanghai visa ah oo valid ah oo aan dhicin oo waqtigeedii dhicitaanka uusan gaarin, aad ku tegi karto adigoona ka dalban fiiso ama dalku gal midna. xataa marka airportka tagto visa on arrival xataa uma baahnid, keliya haddii ay fiisadaada Shanghaiga ay shaqaynayso. wadamadaasi waa 19 waddan, intooda badan waxay ku yaalaan bariga qaaradda Yurub, qaarna waxay ku yaalaan wadamada Latin America. wadamadaas wadamada ugu muhiimsan waxa weeye waddanka Turkiga oo kale. ayaan dhowto waxaan kasoo hadlay muuqaal sida xagga ka arkaysaan sawirka ah oo ku saabsan sidee lagu heli karaa dalku galka waddanka Turkiga. haddii aad haysato fiiso Shanghai ah oo shaqaynaysa
oo aan dhicin muddadeedii aysan dhammaan waxaa ku tegi kartaa Turkiga adoona fiisa kale u baahnayn. waxaan lagu ogol yahay inaad ku joogto muddo 1 bil ah 30 maalmood haddii ujeedadaadu yahay keliya ay tahay booqasho ama dalxiis ama ganacsi. sidoo kale waxaa ku joogi kartaa Belgrade waa caasimadda waxaan ka wadaa waddanka Serbia ayaa joogi kartaa muddo ayagana sidaas oo kale ah 1 bil ilaa 3 bil. waxaa ku joogi kartaa wadamo ku yaala Latin America sida tusaale ahaan waddanka Colombia, xataa waddanka Mexico ayaa lagu tegi karaa Schengen visa haddii aysan dhicin oo ay shaqaynayso. waxaana ku joogi kartaa muddo bil ah. hadda waxaan u gudagalaynaa shuruudaha ama dokumentiga qofka looga baahan yahay si loo siiyo Schengen visa. Schengen visa sa u hesho shuruudo guud baa ku xiran dhammaanba noocyada kala gedisan ee Schengen visa. shuruudahaas waxaa ka mid ah 1 qofka inuu application formka uu buuxiyo oo dhammaan macluumaadka looga baahan yahay markaas uu ku soo qoro formka. sidoo kale waxaa looga baahan yahay 2 sawir ama testero. sawiradaas shuruudda looga sii baahan yahay waa midka xaggan ka muuqda, waa inuu balciisa ahaadaa 35 millimeter, dhirarkana uu ahaadaa 45 millimeter. rectangle-ka oo labadiisii dhinac iska soo horjeeda ay isla eg tahay waa inuu noqdaa. sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay round trip reservation ama tigid baag ah oo aad ku soo noqoto markii muddada 90kaas cisho ah ay ku dhammaato. iyadana waa lagaaga baahan yahay. marka macnaheedu waxa weeye adigoona fiisaha helin wax tigida jaran maysid oo lacag iska bixin maysid, laakiin tigid aad booking garaysatay haddaa shirkadaha diyaaradaha u tagto aad dhahdo tigid buukana u baahanahay oo lacagta hadda bixinayo hala iisii mataqaanaa booking gareeyo, ayagana way kaa yeelayaan. laga yaabaa inay additional fee lacag gooniya oo dheeriga kaa qaadan hadhow haddii fiisaha lagu siiyo. sidoo kale waxaa lagaga baahan yahay qodob muhiim oo meesha ku qoran oo ah travel insurance inaad haysato. maadaama aad bini'aadan tahay oo xanuunsan kartaa, isbitaal baa geli kartaa, arrin emergency ah kugu imaan karta, waxaa laga yaabaa adiga laftiga inaa xanuunada qaar aad qabto. marka waxaa u baahan tahay caymis caafimaad inaad haysato. caymiska caafimaad waa inuu daboolayaa dhaqaale gaaraya 30,000 oo euro ama lacag u dhigantaa 30,000 oo euro ama dollar ha ahaato ama lacagta waddanka aad joogtid ha ahaatee. laakiin taa micnaheeda ma ahan in aad 30,000 oo euro aad si caddaan u haysato ama bangigaaga akoonkaaga ay kugu jirto. keliya waxaa u baahan tahay inaad iibsato shirkadaha caymiska bixiya. ilaa qofka caymis caafimaad buu geli karaa, guriga aad degantahay adigu aad leedahay oo caymis gelin kartaa, gaariga markaa shil gasho oo kale caymis baa la geliyaa oo lacag bilaa qofka laga qaado ama lacag hal mar oo qofku u bixiyo ayaa jirta, oo haddii ay hadhow wax dhacaan shirkadaha caymiska ay daboolayaan kharashaadka markaas loo baahnaa. haddii aysan wax dhicinna lacagtii aad bixisay fiiga ahayd ay iyagu iska lahaanayaan. marka waxaa u baahan tahay inaad caymiska shirkadaha ka iibsato dhammaanba foomka shirkadaha caymiska ka iibsanayso iyo wax kastoo ku taxalluqa arrintan Schengen visa. waxaynu kula wadaagayaa descriptionka qaybta hoose ee warbixinta ayaan kula wadaagayaa dhammaan linkiyada iyo wixii macluumaada oo dhammaystiran. qodobka 3 waxaa u baahan tahay proof of accommodation. macnaha waxa weeye inaad caddayso aad dukumenti keento meesha aad degayso. tusaale ahaan oo kale haddii aad hotel degayso muddada aad joogto aad hotel booking garaysatay, hotelkaasay u baahan yihiin caddayntii bookingkiiba u baahan yihiin. sidoo kale haddii uusan hotel ahayn oo aad guri iibsatay, rental agreement guriga kiradiisii ayaa laga rabaa. haddii aad asxaab iyo family booqanayso ujeedkaaguna safarka uu sidaas yahay, waxay kaa rabaan invitation letter, warqaddii invitationka casumaadda inay ayagu mataqaanaa daboolayaan deegaanka iyo meeshaad degayso, adresskooda oo dhammaystiran ayaa laga rabaa. qodobka 4 oo muhiimka laga rabo waxa weeye bank statementiga oo
saddexdii bilood ugu dambeysay. haddii aad 6dii bilood ugu dambeysay keento way kasii fiicanta. markaas waxay rabaan inay hubiyaan inaad dhaqaale ahaan isku filan tahay muddada aad waddanka joogayso. haddii aad adigu markaas aadan dhaqaalo kugu filan oo akoonkaaga kugu jirin, waxaad u baahan tahay in aad qof kale oo familka ah ama saaxiib ah uu banki statementigiisa soo qaado, isla markaana uu soo siiyo warqad sponsorship letter ah oo caddaynaysa inuu isagu mas-uul ka yahay baahiyahaaga dhaqaale markii inta halka aad joogto waddamadaas Schengen area inta aad ku sugan tahay, inuu wixii dhaqaale ah ay isaga daboolayo. qodobka ugu dambeeya waxa weeye waa inaad keentaa caddaynta ama rasiidka lacagta ku bixisay fiisaha Schengen visa. waa inaad lacagta bixisaa intaan lagu siin ama lagu ogolaan fiisaha. haddii lagu diido lacagtaasi soo celis male. haddaba waxaa u baahan tahay oo hadda isweydiinaysaa su-aal muhiim ah, maadaama 26 waddan ee Schengen area ay ka kooban tahay, 26 waddamo ayaa jira oo Schengen fiisaha si fudud ku bixiya iyo waddamo ay adag tahay in laga helo. marka waxaan ku siinayaa tips 3 waddan ee ugu fudud inaad ka qaadato Schengen visa. waddamadaas waddanka koowaad waxa weeye waddanka Lithuania oo ku yaala Baltic. waddamada Baltic nationska ka mid yahay European Union ku jira, isla markaana Schengen area ku jira. waa waddanka 95% codsiyada dalku galka Schengen visa uu approve gareeyaa oo dadka uu siiya. waddanka labaad waxa weeye waa waddanka Finland. asagana sidoo kale aad buu u fududahay in loogu helo Schengen visa. waddanka saddexaad waa waddanka Poland. aad baa ugu mahadsan tahay maadaama aad ilaa intaan la soo gaartay. muuqaalka samayntiisa iyo macluumaadka soo ururintiisa waxa ay galay waqti fara badan iyo energy. channelkana wuxuu ilaa hadda u shaqeynayaa muddo sanad ka yar. marka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto, like-ka muuqaalka haddii aad saarto dad badan buu gaaraya insha Allah tacaala. wixii comment ah ee aad noo soo qortana su'aalo nagu soo weydiinayso insha Allah tacaala waxaan diyaar u ahay inaan ka caawiyo. muuqaalkani maanta halkaas uu ku yahay. intaan muuqaalka ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadi korkiina ha ahaato.